بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد fariintan maanta aan halkan maaragtay ka duubayno waxaan ugu talagalnay in shacabka iyo dawladda deegaanka aan gaarsiino xaaladda abaartu ay taagan tahay annagoo ah bahdii nabadgelyada maalmahanba socdaalka ku mareeyay goobo maaragtay badan oo deegaankeena ka mid ah abaartu waxaan leenahay xaddi aad u adag oo aad u mug weyn oo aan qiyaasi karin bay maaragtay ayay leedahay waxaanu aragnay meel kasta oo aanu soo maray oo aanu socdaal ku soo maray waxaanu aragnay in abaartu maaragtay ay astaamiya abaartu ay ka muuqdaan waxaanu soo aragnay xoolo aad maaragtay dadka maaragtay uga baaba'ay oo dhintay maaragtay oo baaba'ay baanu soo aragnay waxaanu aragnay xoolo maaragtay iyaga laftooda qalfoof nool uun ah oo socda oo bulshadeena maaragtay haddii uu jiilaalku haddan sii jiro aad saameyn waqti dheer yeelata maaragtay la iman doonta dhibaatada kale aan soo aragnay waxa weeyaan abaartu dhammaan deegaanka intiisa badan meelahaan soo marin ma garan laakiin intii aan soo maray way ka siman yihiin meel dhaanta ma laha waxaan odhan karaa abaartu tabartii iyo xeeladii iyo mataqaanaa quwaddii dawladda in ka badan buu maaragtay ku dhacaysaa miisaaniyad baa jirta dawladdu hadda ka hor ay u ansixisay oo ilaa dhowr boqol oo milyan ahaa laakiin nasiib darro waxaa dhacay deegaankii oo dhan maadaama deegaanku aad u ballaaran yahay hal mar bay ku wada habsatay waxaan odhan karaa faraha inay ka sii baxdo bay aad ugu dhowdahay xaaladdan markaan annagu soo arnay laba tusaale oo yar baan idiin soo qaadanaya meeshan laba baar la yidhaahdo oo kale tusaale ahaan meelaha hadda ay aad ugu abaarto ay u saamaysay ka mid a waxyaabihii odayaashu ay noo sheegeen waxaa ka mid ahaa in meyd ay waayeen biyo ay ku aastaan biyo ay ku maydhaan oo ay nagu yidhaahdeen kaalee nala soo arka ama kaalee maaragtay shacabka waraysta meydkii aanu maaragtay qofkii naga dhintay wax aan ku maydhno ayaanu weynay ay nagu yidhaahdeen waxaanu ku soo aragnay maaragtay habar ceel meeshan ceel habreed meeshan la yidhaahdo oo kale wax alla ciidamadii iyo dadkii aan meesha ugu tagnay wax biyo ah iyo wax maaragtay xoolihii baad ah oo la siiya meeshii inaan yadna ka soo weynay waxyaabahaan aad ula yaabanay waxa weeyaan xoolaha meelaha taagan ee tuban ka sokow waxaad meelaha arkaysa xataa doofaarka oo meelaha ay ahayd bini aadamku markuu arkay inuu ka carara ay ahayd doofaarkii iyo duurjoogtii oo meelaha bannaanka intay soo taagantahay aan kaa dhaqaaqayn oo biyo la'aan maaragtay waxaysan markaa abaartu xaddi laga argagaxo oo aad looga noxa oo saameyn adag bay maaragtay bulshadeena ku leedahay marka fariintaan u diraynaa waxa weeyaan dadka ma aha kaliya dawladdu dhammaan mas'uuliyiinta dawladda oo dhan hadda waan ognahay inay mushaarkii hadda ka hor la iska jaray haddana dareen labaad wixii mushaar ah iyo wixii xafiiseed ah oo dhan in maaragtay hoos loo soo dhaadhaco oo degmaan la soo gaadho maaragtay degmooyinka iyo meelaha deegaanka oo dhan isbeddel weyn bay arrintaas ka muujinaysaa marka aad timaado uu qofku maaragtay isagoo markay ugu yartahay shaqaalaha deegaanka haddii la soo diro oo kale noloshii dadku wax buu ka bedelayaa meeshii buu imanayaa beerdheyn buu soo qaadanaya wax buu iibsanayaa lacagtaasaa dadkii gaadhaysa isagii baa dhibaatadii arkaya biyuu u dalbayaa booyadu wax u karaynaya wuu cararayaa lacagtan waxayoo dhan buu ku kharash garaynayaa middaas waa mid markaa dawladdu inay gurmad weyn oo si intii markii hore ahayd ee saas ahayd aan kasoo laakiin shaksi oo shaqaalo oo dhan in la sameeyaa loo baahan yahay middaasi waa mid shacab weynaha deegaanka soomaalida gaar ahaan kuwa magaalooyinka jooga waxba noloshu inooma ah haddii dadkeenni baadiyuhu ay sidan u baaba'ayaan ay sidan u dhammaanayaan marka sida Soomaaliya oo kale khibradaha ay leeyihiin TV-yada in la fadhiisto haweenka maaragtay wixii dahabkooda iibin kara lagu maaragtay lagu dhiirigeliyo culimada diinku ay masaajidada ka kacaan oo ay soo fadhiistaan dadka qurba joogta dhammaantood inay maaragtay qurba joogtu ay ururin bilowdo sababtoo ah haddii jiilaalkan hadda lagu sii jiro oo sidan ku sii jiro anuu waxaan aaminsanahay in dadkeenu meel aan godka aynu ku dhacnaa inaan ka soo laabin karin marka waqti dawlad la eedeeyay iyo waqti maaragtay mas'uuliyiin la eedeeyay iyo waqti maaragtay saas la waxay dadkeenu mas'uuliyiin qof kasta waajib waxa saaran bartu joogo inuu ka birmado waxaan online dadka qurba joogta lacag ururin hala bilaabo dadkiini way baaba'ayaan abaara ku habsanaya waxaan oran lahayn culimada diinka masaajidada ka kaca waxaan oran lahayn ganacsatada maaragtay ka kaca ganacsigiina iyo wixii oo dhan magaalooyinka in la dhaxmaro oo la yabohoyo sida masaajidada marka la dhisay oo dhan microphone inta la qaato abaartay la yiraahdo biyo la yiraahdo
gacantii dawladdu way ka baxaysaa wax dawlad lagu eedeeyaa iyo wax noocaas oo la yiraahdaa meesha ma aragtay ma yeelo qaar badan baa laga yaabaa hadda hadalladayadaas inay si siyaasad u dhigaan qaar badan baa laga yaabaa in hadalladayadaas ma aragtay ay siyaabo kale u turjubaan qaar badan baa laga yaabaa inay ma aragtay macnayaal kale fara badan ay u sameeyaan kuwaas maanta micna ma sameynayso laakiin bulshada in saas la sameeyo culimada diinku ay meel qasnada ay sameeyaan iyagu baabuurta ay kireeyaan dadka nin kastoo nin walba meesha tuulada aad ka timid inaad biyo aad gaarsiiso oo culimada diinku iyagu lacagtooda maamulaan dawladda ha u soo dhiibina dadka ganacsatadu ay lacagta iyagu maamulaan dawladda ha u soo dhiibina dadka dhalinyarta ee kale ee samawadayaashu ay iyagu maamulaan dawladda ha u soo dhiibina laakiin shacabkii wax gaaraan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin fariintaasi waxay naga tahay qayladhaan baan u wadnaa maanta anagu